Asalaamu calaykum asxaabta qaaliga kusoo dhawaada channelkayga cunto karinta iyo macmacaanka ee Mema Cooking and Sweeties. Waa walaashin Mema oo idin wada muuqaal cusub. Fadlan haddii aad channelku cusub tahay subscribe inoo saar. Haddii aad hore inoola joogtayna xagga hoose ee commentiga ha laga arko. Ha ka hilmaamin muuqaalka inaad like ii saarto. Like-tu waxay iga caawinaysaa inuu dad badan gaaro. Sidoo kale share asxaabtaada la wadaag haddii uu muuqaal ku cajabiyo. Ood ku mahadsan tahay daawashada muuqaalkan. Kusoo dhawow codka aad iyo aad muuqaal ahaan u wanaagsan, sidoo kale dhadhan ahaan aad iyo aad u dhadhan wanaagsan oo aan kuugu talagalay asxaabta qaaliga inaan idinla wadaago. Codkii aan idiin soo diyaariyay sidaan aad u jeedaan ayuu ku soo baxay. Waxaan rajeynayaa muuqaalkiisa inaa aad iyo aad uga hesheen. Dhadhan ahaanna waxaa waaye qaabkan u sameeyay idinka ayaa arki doono, sidoo kale ka warkeeni doono sida ay idinla noqdo. Waxaa waaye codka ahaan anaga haddii aan nahay Soomaali mar walba waan isticmaalnaa siibayna canjeerada aan ku cunno oo kale xilligii quraacda. Marka waa ka codkaceeniin sida u jeedaan waa ka muuqaalkiisa. Waxaan rajeynayaa in aad iyo aad u idin cajabiyay. Kusoo dhawaada waxyaabihii aan ka sameeyay codkaceena oo ugu horeeyo hilibkii codkaca loogu talagalay in laga sameeyo. Halkan waxaa iigu diyaarsan 3 kiilo oo rubac dhiman oo hilib ah oo diyaarsan oo loogu talagalay in codkaca ka sameeyno. Sida ognahay codkaca wax ugu horeeyo oo laga sameeyo waxaa kamid ah hilibka oo yacni hilib jiir ah oo loogu talagalay codkac ahaan in loo sameeyo oo aanan ahayn hilib adag. Sida ognahay hilib geel ayaa badanaa codkaceena ka sameysana. Hilibkan aan ka sameynayo codkacana waa hilibka sida caadiyan aan u sameysano. Marka waa ka hilibkeenin uu inoo diyaarsan yahay waa 3 kiilo oo rubac dhiman. Marka asxaabe waxaan ku shubayaa hilibkii. Marka waa ka qaanda ayaa marka hore ugu shubaya hilibka maadaama uu badan yahay wuu kala daadanaya. Miiska nooga hadlay ma rabo sida daraadeed si tartiib ah ayaan qaando ugu shubaya weelka. Markii dambe oo aan kala yareeyana waxaan rabaa inaan hal mar ku gediyo si aan dhib lahaynin oo aan iiga daadanin. Waa ka hadeerna waa anigii ku gediyay sida u jeedaan basaxankii dhammaan soo qaaday oo weelkii gab ku siiyay anaa ku shubay. Marka waa ka hilibkeeni waxa uu ku jira hadeer weelkii loogu talagalay in lagu kariyo. Marka waa ka waa daboolaya waxaan u diyaarinayaa dabkiisa. Codkaca kuma karinayo dhuxul waxaan ku karinayaa gaas. Marka ila socda hadee waa ka sida u jeedaan shawladii ayaa ii daaran ama gaaska waxaan saarayaa hilibkeeni. Waa ka aniga saaray hilibkii waxaan rabaa inaan wax yar sugo. Waxaa waaye salka digsiga ma igaaga dhagaayo ama salka weelka hilibka. Waa hilibka marka hore asaga ayaa biyo dhalaayo. Biyihiisa ayuu xitaa muddo ku sii saarnaa karaa. Marka aniga laakiin waxaan ka qaaday daboolka sida u jeedaan. Waxaan rabaa inaan ku daro biyo yar oo aan korka ugu shubo. Muhiimadda aan biyahaas ugu darayana waxay tahay inuu hilibkayga ii bislaado oo biseel zaid ii noqdo. Asaga biyo uu dhalay iyo biyahan aan korka ugu daray intadoodaba waxaa waaye biseel ayay ka dhigayaan. Kadib waan qalajinayaa. Markaan qalajiyo kadib ayaan waxaan ku shiilayaa saliidi iyo sixintii ii diyaarsaneed. Sida u jeedaan waa ka qaandada aan isku dhex galiyay waana daboolay. Waxaan u sugayaa muddo inta uu ka soo karaayo hilibkaasi oo biyaha ku karaayo. Marka waan idin tusinayaa qaabkan ayuuna u karayaa sida hadeer aad arki kartaan weelkii aan hilibka ku karinayay. Burinayaa sida aad u jeedaan aad iyo aad ayuu u burinayaa. Taasna waxay ka dhigan tahay in hilibkii uu karaayo. Dabkana xoogaa waan u yara dheereeyay maxaa yeelay waxaan rabaa inuu hilibka karo oo zaid u karo. Anina dabka zaid uguma aanan dheereenin. Markii lagu karinayna ma fiicnin zaid loo dheereeyo. Halkan waxaa iigu diyaarsan cusbo iyo filfil. Cusbada waa cusbo shiidan ama cusbo tuman sida u taqaanaan iyo sidoo kale filfisha oo filfil iyadan aan soo shiiday. Marka waa ka inta hilibka biyaha uu ku karaayo ayaa waxaan rabaa inaan ku kor shubo oo yacni labadaas inay iigu karaan. Waxyaabaha kale sida heelka iyo qorfaha iyo dhagiyarka gadaal ayaan ayagana uga darsanayaa. Marka waa ka hadeer waan ku shubayaa filfishii iyo cusbadii. Cusbada waxaan rabaa inay dhadhan ii siiso. Filfishana sidoo kale in ay ii siiso caraf ayaan rabaa hilibka. Aniga mar walba waan sameynaya hilib filfil marnaba kama tago iyo cusbada. Haddii ahaan lahaa codkac ama haddii uu ahaan lahaa maraq labadaba. Waxaan u isticmaalaa inaan ku daro filfil iyo sidoo kale cusbo. Marka waan daboolayaa ha karo waqti ku filan ha qaato muddo kadib ayaan ku soo laabaneynaa markii uu biyaha gursado.
waa kan waa kusoo laabtay odkaceeni sida u jeedaan biyihii wuu sii gursanayaa way sii yaraadeen biyaha waxyar ayaa u hartay marka waan usii sugayaa muddo ayaan usii sugayaa waxaan rabaa sidoo kale in aan waqti siiyo sida had u jeedaan marka waxa waaye markaan zaaid isku dhex geliyo haddana waan daboolayaa waayo marka aan daboolo waxaan rabaa in uu biyahan yar ee ku haray in uu gursado oo uu noqdo qaleyl waan daboolayaa asxaabta qaaliga waxaan rabaa inaan diyaarsado waxyaabihii aan ku carfin lahaa inta uu kasii gursanayo hilibka biyaha uu kasii yacni dhameysanayo marka gacanta waxaan ku hayaa heel ayaan ku hayaa heelkan waa soo tumayaa marka aan soo tumo kadib waxaan rabaa inaan yacni iska saaro qolfaha heelka oo aan budada heelka kaliya soo reebto sida u jeedaan waa kan heelkii waan soo tumay waxaan iska saaray qorfihii oo yacni qolofka oo heelka sababtoo si uu dadka ugu gelin markii la cunayo odkaca uu noqdo odkac nadiif ah sidoo kale halkaas waxaan ku hayaa dhagayarka ma fiicna inaa iska badisid maxaa yeelay qareer ayuu ka dhigaya odkaca haddii aad isku badiso waa asagana waa kan waan soo tumay sida u jeedaan halkaas ayaana iskula diyaariyey labadoodaba heelkii iyo dhagayarkii heelkii iyo dhagayarka hadda laguma daraayo laakiin waxaa lagu darayaa goor dambe markii odkaca aan yacni uu soo dhawaado uu noqdo mid bislaan rabo si loogu carfiyo markaas markii la shiilayo oo kale waa ka marka halkan waxaa iigu diyaarsan saliideeni aan ugu talagala odkaca iyo sixintii oo bakeerigan ayaan ku qiyaasanaya wax yar oo hore iigu yaal ayaa bakeerigaas iigu jiro hadeerna caagan sixinta iigu jirto oo ah sixin lo-aad ayaan ugu talagalaa inaan yacni bakeeriga ku buuxiyo oo aan qiyaas ahaan bakeeri buuxo sixin ah iyo saliid oo ah saliida vegetable oil saliida isticmaalno xoogaa ingiriiska ii gambiyey marka aan ayadana waan ku sameynaya odkaceeni saliida sida ujeedaan aniga qiyaas ahaan nus litir ayaan ugu talagalay laakiin wax yar ayaan ka reebay markii aan dareemo inuu ugu filnaan waayo oo kale ayaan kor uga darayaa sixintiina waa kaa bakeeri ayaan qiyaastay oo aan diyaarsaday ayadana intaas ayaa ii hartay sixinteeda caagi iigu diyaarsaneed marka asxaabta qaaliga waa kan sixinta caraf ayay siinaysaa odkaca run ahaantii markaad odkaca sixinta ku darto lagama sheekeyn karo waa kan asxaabta qaaliga qaleyl ayuu noqday hilibkeenii muddadii yareed aan ka maqneen oo aan heelkii iyo aan soo diyaarinayay dhagyarkii iyo saliidii iyo sixintii ayuu qaleyl inoogu noqday sida ujeedaan waan idin tusinaya hadeerna sida uu yahay waa jilcan yahay hilibka sida ujeedaan muhiimada ah hilibkan u jilcinayana waxay tahay hadhowda markaan odkaca aan shiilo oo aan qaleyl ka dhigo markii la cuni tago hilibka odkaca uusan noqonin hilib adag oo aanan la kari karin sidaas ayaan ugu talagalay oo uu noqdo hilib la cuni karo oo aanan ahayn adeeg dhagax ah marka waa kaa odkaceena sidaas ayaan ugu talagalay inuu hadhow kusoo baxo sida ujeedaan odkicii qaleyl waayo laakiin waxaa rabaa inaan shiilo oo aan zaaid u qalajiyo si markii aan saliida ugu daro uu yacni wax biyo leh oo kale uusan igaaga noqonin taxadar ayaan u sameynaya oo aan u qalajinaya odkaca hilibkana markuu aad iyo aad u qalalo saliida markaa ku shubto makaa yacni noqonayo wax biyo ku jiro oo kale laakiin haddii aadan qalajinin oo aad saliid ku shubto wuu ku dhibaya xitaa kor ayuu usoo boodboodaya waxaaba macquula inuu adiga ku waxyeeleeyo ama meeshii aa wax ku karsanaysa inuu kaa hadlay ama saliidii wixii marka si ay taas dhicin waa inaa marka hore zaaid u qalajisaa hilibka oo qaleyl ah ka dhigtaa welibana aa muddo macquul ah aa siisaa marka aad dareento inuu hoos kasoo gaduutay oo kale hadda sida ujeedaan oo kale oo uu gaduud hoos kasoo noqonayo waa inaa markaas yacni ogaataa inuu diyaar yahay hilibkan oo lagu dari karo saliida si adigana markaas uu kugu noqdo hilib qalalan oo aa saliidii ku shiilatay si odkacaagii markaas shiilitaankiisii oo halkaasi kaaga sii bilowdo sida ujeedaan aniga waan qalajiyey laakiin weli waxaan rabaa inaa yacni sii qalajiyo oo qaleyl zaaid aan ka dhigo inuu iga gubtana waan ka ilaalinaya maxaa yeelay saliid iska difaacaysa ma lahan biyo digsi ka difaacayana ma lahan waa inaad taxadar weyn muujisaa waa kaa saliidii ayaan ku shubay waan isdhex gelinayaa hilibka iyo saliida ayaan isdhex gelinayaa weliba waxaa waaye zaaid ayaa isku dhex gelinaya qaandada dhowr mar ayaan ku celcelinayaa si yacni hilibka iyo saliida ay isku dhex galaan
sida hadeer aa ujeedo hilibkaygu uu ii qalalan yahay, saliid ayaan ku shubay, welina dabka ayuu saaran yahay ma aanan ka dejinin. Sidaas oo ay tahayne wax biyo ah oo saliid iyo yacni dhibaato ay ka keenaysa ma lahan, waayo hilibka qaleel waaye. Waxaan dareemay in saliidda igu yar tahay, sidaas daraaddeed haaf yar oo aan nus liitarkii ka reebay ayaan ku sii daray. Sidaan ognahay oodkaca waxaa loogu talagalay in saliidda ay ka kormarto. Hadeerna waxaan ku darayaa qorfaha ma tumin, sababtoo ah waxaan rabaa qorfaha markii aan oodkacayga shiilo kadib inaan iska saaro, waayo ma rabo hadhow markii la cunaayo oodkaca inuu ii soo galo qorfihii oo markaaseti laga cuni kari waayo oodkaca. Marka waa fahamteen aan filayaa qaabka aan u diyaariyay oodkaceena. Waa kaa hadeer waxaa ii bilaabatay marka in oodkacii uu ii shiilmo, sida ujeedaan saliidii iyo waxaa waaye qorfihii iyo hilibkii, maasha Allah si wanaagsan oo aan ugu talagalay ayay ku socdaan. Markii hilibka biyo ku karisid marka hore oo aad biyaha ku bisleysid, saliid badan ma qaadayo. Hadda tusaalahan oodkacan haddii aan marka hore biyo ku kari lahaynin, saliidiisa waxaa waaye 1 liitar iyo bar ugu yaraan wuu qaadan lahaa. Hadeerna markii la isku daro sixinta iyo saliidii aan ugu talagalay oodkaca inaan ku sameeyo waa 1 liitar oo dhiman rubac, maxaa yeelay sixinta rubac ahaan ayaan u qiyaasay, halka saliidana aan nus liitar ahaan u qiyaasay. Daqiiqada kadib ayaan kusoo laabanaynaa oodkaca. Waa kan asxaabta qaaliga, waa kusoo laabanay daqiiqada kadib inta uu sii shiilmayay oodkaceena. Haddana wax yar ayaan saan isku dhex gelinayaa. Marka is dhex geliyo in yar muddo ah kadibna waxaa waaye waan usoo laabanaa, sababtoo ah inta aan oodkaca sameynayo oo dhan idinma tusi karo, maxaa yeelay 1 saac iyo bar ayay igu qaadatay. Marka xoogaa ayaan kusoo laabanayaa hadeerna. Waa kan waan kusoo laabtay oodkaceena, sidaan ayuu iigu soo baxay aad ujeedaan. Welina waxbaa u dhiman, waayo hadda wuxuu bilaabay inuu soo buriyo biseylkii looga baahnaa oodkaca ayuu hadeer bilaabayaa, sida ujeedaan asxaabta qaaliga. Markii aad sidaan ku aragto oodkaca haddii uu marsaan usoo buriyo, taas macnaheedu waxay tahay in uu soo bislaanayo. Marka taasna waa inaad fahmi kartaa. Anigana qorfihii iyo wixii aan ugu talagalay loogu talagalay oodkaca ayaan ku shiilayaa si yacni caraf ii siiyo, laakiin waan ka saaraya oodkaca. Wax yar kadib ayaana isku soo laabaneynaa. Marka waa kan hadeerna haddana waan soo laabtay, waxaan ka saarayaa qorfihii ayaan ka saarayaa oodkaca, maxaa yeelay qorfaha ma rabo markii la cunaayo oodkaca inuu yacni dadka afka u galo. Waa kaa waan ka baxbixinayaa, sida ujeedaan mid ayaana uga saarayaa, dhammaantiisana waan ka dhameynayaa si aan uga dhigo oodkaceena mid nadiif ah. Maadaama caraftii aan ka rabno qorfaha uu yacni noogu shiilmay hilibka, muhiim ma ahan in qolofka qorfaha uu noogu sii jiro hilibka. Taasna waxaa waaye sida idiin sheegay ma fiicno markii la cunaayo oo kale inuu yacni dadka afka uu ka galo, waa yacni looguma talagelin. Waxaa la rabaa oodkac nadiif ah oo yacni caraftiisi iyo wixiisii oo dhan ay u dhammaystiran tahay, wax ka dhimanna aysan jirin. Sida ujeedaan oodkaceenina waa idiin sheegay wuxuu bilaabay inuu yacni oodkaca qaabka lagu yaqaanay ee ah inuu karsamo oo soo buriyay saliidda. Waa ujeedaan aad iyo aad ayuu u burinayaa. Saliidana waxaa waaye sida loogu talagalay waaye, oodkaca zaid uguma badno. Marka daqiiqada kadib ayaan isku soo laabaneynaa. Waa kaa waa soo laabtay, sixintii ayaan korka uga daray markaan, maxaa yeelay oodkaca sida aan dareemay wuu bisil yahay. Wax yar ayaan rabaa inaan kusii shiilo. Sixinteenina waa sixin lo'aad, sixin ari ma aha. Sida ujeedaana waan shiilayaa oodkaca. Waxaa waaye hadeer waxaan ku darayaa heelkii iyo dhagyarkii iyo tunaa oo ii diyaarsanaa, maxaa yeelay waa caraf ayay ii siinayaan. Gadaal in looga daro ayaana fiican, sida sixinta oo kale aan gadaal uga daray oodkaca. Intadoodana waxaa waaye waan kusii shiilayaa si yacni caraf zaid oo ii noqdo. Markaan oo kale guriga waxaa waaye sixinta sanka ayaa meel kasta, qol kasta, meel walbo guriga markaasaan ugu sameynayso oodkac ay kaa soo galaysaa. Wax yar kadib waa isku soo laabaneynaa. Waa kan waan soo laabtay asagoo zaid u burinayo oodkaceeni, sida ujeedaan ama aad ka dheehan kartaan. Markaan oo kale waxaad dareemaysaa hadda oodkacaagi inuu diyaar yahay, laakiin aniga waxaa waaye xoogaa weli waa usii sugayaa, maadaama marka hore aan biyo ku kariyay oodkaceygii hilibkan aan zaid u jilciyay. Hadda sababtaan xoogaa usii sugayo waxay tahay inaan xaqiiqsado in yacni hilibkan uu yahay hilib oodkac ah oona zaid xoogaa adeeg loogu talagalay uu noqdo, adeeg zaidna uusan iga noqonin.
sida aad arki kartaan waa kaa oodkaci indhahaaga ayaa ku dareemi kartaa qaabka usoo carfayo oo kale ayaa ku fahmi kartaa in oodkacani uu yahay oodkac diyaarsan. laakiin waa inaad sii shiilshaa oo yacni sii adkeysaa maadaama marka horeba aan ka dhigay oodkac jilcan sida idin sheegayba. laakiin marka aad ku sameyneysid saliida kaliya hilibka horta wuu kaa adkaanaya, taas waa sax. maxaa yeelay adeeg zaaid uuna kaa noqonaya, laakiin haddii aa marka hore iska bisleysid hilibka hilib bisil aa ka dhigtid saliid yarna wuu qaadanaya, sidoo kalena biseel fiicanna wuu bislaanaya. haddeerna dabki waan ka damiyey maxaa yeelay wax u dhiman ma lahan markaan. sababta aan dabka ugu damiyeyna waxay tahay in yacni uu bislaaday oodkaceeni uuna halkii loogu talagalay uu taagan yahay. sida ujeedaana wuu soo burinaya, anigoo ka damiyey dabka ayuu kor usoo burinaya. saliida kor ayay usoo baxeysaa. haddii aad sixin ku dartana inaba lagama sheekeyn karo, aad iyo aad ayay caraftiisa hawada kaaga qabsanaysaa, sida la rabana way noqonaysaa sixinta. dhadhan ahaana way wanaagsan tahay. markii aad rabtid inaad oodkac sameysid oo kale way jirtaa in la qalajiyo hilibka saliid lagu shiilo. dadka qaar waxay sameeyaan saliid in ay ka miiraan oo kale, oo yacni oodkaca saliida haddii aan waxaan aaminsanahay saliidii laga miiro lagu shiilaba dhadhankii oo hilibka in la daadiyey oo kadibna sixin kor looga daraayo oo kale way sameeyaan. laakiin aniga waxba iskama qasaarinayo, dhanagii hilibka iyo sidoo kale saliidii aan ku shiilay iyo sixintii wixii oo dhan waan isku wada heesanaya maxaa yeelay dhadhankaas ma rabo inuu iga baxo. marka waa ka asxaabta qaaliga oodkaceeni aan soo sameyneynayna sidaan ayuu kusoo baxay. markaana waxaa ugu talagalay inuu xoogaa yara qaboobo. midna ogow haddii aad sixinta sidaan ugu shiisho oodkaca marna makaa fadhiisanayso, maxaa yeelay marka hore ayaaba meel saartayoo waxaa u shiishay si aan inaba caadi ahayn oo saliida dabka ayaa tustay sixinta. mar haddaa sixinta sidaan dabka u tustid oo aad oodkacaaga ku sameyneysid hubaal waxaa ah inaysan kaa fadhiisanaynin. oo marka aad ku shubto kalooradda ama marka aad ku shubto jeega oodkaca muddo maalmo ah adiga oo aana kululeynin ilaa intuu ka dhamaana waa iska isticmaali kartaa, haddaa doontana waad kululeysan kartaa. oodkaciina waa kaa sida ujeedaan gacanta idinku tusinaya sida uu noqday, sida furfurka ah uu noqday. aan ahaan sida igula quruxda badan waa sidaan. idinkana waxaa rajeynayaa in sidaan oo kale uu idinkugu qurux badnaado oodkaci oo aad iyo aad uga heshaan. halkanna waa kan waxaan kusoo shubay oodkaci oo aan baaquli ku shubay. walaa hadda wuu qaboobi la-yahay oo macnaha xitaa haddaad dhowr daqiiqo sugta xitaa wuu ii qaboobi waaye. marka waa kaa saxankii ayaan ku gadinaya, weli xitaa waxaad dareemeysaa inuu kor usoo kacayo oo asagoo waxaa muddo la suga xitaa uu kor usoo baxbaxayo saliidii oo sida in dab ay saaran tahay oo kale ay tahay. laakiin dab ma saarno oo waxaa waaye waa oodkac diyaarsan oo loogu talagalay xilliga cunitaanka, laakiin wuu kulul yahay. waa kaa marka kuleelkiisii ayaan kusoo dejiyey maadaama xoogaa aan sugay oo waqtina aan karinayo oodkaca. intaas in ka badan in yacni duubitaanka uu igu sii dheeraado ayaan diidanaa. sida ujeedaanba waa kana oodkaci waana diyaar. waxaan rajeynayaa inaa aad iyo aad uga hesheen sida aniga uga helay oo kale. sixintan waxaa waaye carafteeda waxaa waaye waa lagama sheekeyn karo. oodkaca aad iyo aad ayay ugu macaan tahay, carafta ayaa kasii daran dhadhanka sixinta. haddii aad oodkac ku kariso inaba lagama sheekeyn karo. dhowr marna erigaas waa idinkugu soo celceliyey. waxaan rajeynayaa inaad fahanteen oo aad ka hesheen. ani ahaanteeda aad iyo aad ayaa ula dhacay oodkacaneeti. waxaa waaye mana kusii dheeraanayo waayo waxaa rabaa inaan ku shubo jeegii loogu talagalay oodkaca oo aanan sidaaseeti aan oodkaci ugu gadiyo. marka waa ka asxaabteeda qaaliga aniga kalooro ma isticmaalayo, sida idin sheegay jeeg aan ku gadi lahaa waa kana oodkaca waana kusoo shubay oodkaci. waxaa moodaaba inuu yaryahayba oodkaca, laakiin haddii hilibka markasta oodkaca laga dhigo asaga ayaaba sidaas isaga soo yaraanayo. sida ujeedaana oodkaci jeegan ayaan kusoo gadiyey maxaa yeelay oodkaca waxaa waaye mar walbo waxaa waaye weel loogu talagalay ayaa u wanaagsan haddii ahaan lahayd kaloorad ama jeeg in yacni lagu shubo markaas, si haddii aad
aad ku quraacanaysid subaxa dambe ama subaxa kale xilligii uu ku gaaro oodkacaaga uu kugu ahaado oodkac nadiif ah oo aanan difeeto kaasoo gaarin ama iska kaa bedelin. Midna haddaan idiin sheego oodkacan ma u baahno in la kululeeyo subax kasto. Haddii adiga laakiin aad iska jeceshahay wax diiran waad sameysan kartaa. Sidaas iyo waxaan idinkaga tegayaa caafimaad meel walbo aad muuqaalkan ka daawanaysaan. Waa mahadsantihiin.